السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب المركز ونقدر داونسا مركز السود وهذا وصاحبك مالي عبد الله channel كاجا داونسا أنا waa channel ka udgoon qurux waxa la yaabantiin maxamaanta aniga u furay channel ka maadaama qoftii channel kale ay joogto meeshan waxaan u furay meeshan dhowr mar ayaan ka soo muuqday marka waxa ii tahay waa maqaaxideedii bay tahay marka hala yaabin soo gurigiisa qofku saacadu soo galay cid ma weydiin yes furaha ma weydiisay taas waxaan u soo galay aniga straight aan iyada weydiinaysaa soo marka soo dhawaada markaana waxaan soo dhaweynaynaa udgoon qurux oo barnaamijka noo daadiisa asxaabi waa idin salaamay like to share ka and commentiga waa dhankiina hadaa igu cusubtiin hadaa ila sii joogteena share ka iyo like ta iyo good comment waa dhankiina faraha waa yani ilma go'aan ku dhahay ma fahanteen inta igu dadaalay daawashada asa family Somali family anyway man qof ka soo arka gabadhaas dhalaalka badan oo khasab ku saaray Sweden ma taas ka saar hadafina dabash taa kida waa in xal soo waayo qofkii soo arka jiraada asal qof Soomaaliyeed YouTuber hada aragtiin hadafinina suulku u saar aan isku leenahay taabta maxal dhigi jiray waxweyn kama dhibaysa siisi and Mali Abdullah also waa iloowe I'm sorry waa YouTuber kanaga noogu weyn gobolka Calgary in Alberta actually Calgary city so waa muxuu ahayto ninka noogu activesan and muxuu ahayto in community-ga soo aruuriyo maxal dhigi jiray Somali community-ga oo Calgary degan oo YouTuberada aan ninka soo aruuriyay waaye ee sukaay keenay iskaay baray maasha Allah waa YouTuber weyn and wuxuu soo geliyaa Mali intaanan story-gayga u galin and wuxuu ka hadlaa sida Canada lagu imaado dhaqanka Canada muxuu ahay wixii kale nolosha dadka cusub iyo sida dalkan horumar uga gaari karaan iyo tips kasta iyo kaarta kasta iyo wax ka soo xeelada ah oo qarsoona ayaan banaanka soo saaray marka si dadka uga faa'iideystaan wixii af Soomaali aan lagu heli karin meelaha kale loo ku jiro oo afafka kale lagu helo baan soo aruuriyaa soo qabta marka saarada qabsada marka cuna baash waatana daaminis waxa waaye xog aruuriye xogta ayuu soo aruuriyaa luuqadanada ayuu ku soo turjumaa si ay uga faa'iideystaan dadka walaalahay ah oo aan la soconin xirfadda sida shaqaalaha yani waxyaalaha easy-ga delivery cuntada la deliver gareeyo uu soo geliya kambariyashaas dadka shaqana waxa dhama taqaana waxay weydiiyaan markay weydiiyaan niyo channel-kaaga magaciisa Allah markay raahdo waxa la niyo maxaa waa fiirinay maxaa ku hadlaysa afkaaga ma faahnin maxaa waxa noogu sheegaysa annagana aan fahmay af English ugu sheegaysay tada af English aqoonna ugu sheekay maxaa u dhiweysay marka waxaan ku yiri maya waxaan ku yiri sirta aan ka hadlayo meeshan inay ajnabi gaarto ma ugu talagelinba dadkaygan gaar ugu talay community-ga gaarka hadaa marka English kula hadlo family-ga Soomaalida dhan waa iska family-ga so marka waxaan ka hadlo waxay tahay qof kasta Soomaali wax uu noloshiisa anfici karo ku guuleysan karo oo meeshan saadar hadaa marka idinka ajnabiga idinka la wadaago booska nagu ciriirisa marka naga qalay aamad Mali wuxuu soo geliyaa sida escape dish-ka kuwa kale maxay hayeen waa sida shaqooyinka ugu fiican shaqooyinka ugu easy job-ka oo yani adiga gurigaaga jooga maalinka off day-gaaga aad ka shaqaysan kartid ayuu ka hadlaa sida wadanka lagu imaado ka hadlaa lacag looga safgaraysan karo sida kharashaadkaaga loo yareeyo sida gawaari loo gato sida guri waxaasan ka hadlaa arrimaha oo kula saabsan qofku soo dalkan ula qabsan lahaa wax uga faa'iidi lahaa isagoo waxyaalo badan ayuu ka hadlaa channel-kiisana waxa ku qoran Mali Abdullah marka ma hoos soo dhigna mase xitaa u isbeeli gareyn kartaa mase inta Mali waa dhigi karaa M waa ma double A L I Mali iyo Abdullah oo A B D A L L A Mali Abdullah dadka channel-kaygu ku xiran Mali Abdullah subscribe ha loo saaro channel-kiisa la soo booqdo hala fiisid gareeyo ma sha Allah we are teamwork marna kiisan ka soo muuqda marna kaygu ka soo muuqda ma sha Allah asxaabay hala booqdo hoosna waa soo dhigi doona insha Allah billahi kariim thank you so much goon waa ku mahadsan tahay inaad meesha ugu martaqaado isla markaana bulshadaadana igu martaqaado iyo teamkaaga waan kaaga mahadcelinayaa mar walba aad baan u sharfaya taas qiimaha ay leedahay marka adiga iyo saaxiibadaaba waan islaamiya soo dhawaada idin leeyahay mar walba marka Mali channel-kiisa waxyaalo badan oo channelada kale laga helaya
hala booqdo insha allah qurbo joog iyo qorax joog labadaba way anfacaysaa maali janaalkiisa markaa hala booqdo fiisad ayaan idin leeyahay maasha allah cunto karis looguma taga ma baqaani maxaa lagu tagaa vlog iyo waxaa loogu tagaa shaah baan karin aqaani maxaa inta lagu historiga wadanka inta badan u find out kusoo sameeyo oo luuqadeena kusoo sheego marka maasha allah ku yaaca idin dhihi lahay maanta haddaan usoo jeesto maduuca aan haawadan anoo haayo aan ka hadlayna hordhaca maasha allah loo baahan yahay maanta maduuca anoo hayna waxa weeyaan maali waxaa dhacday qurbaha hadda joogno wadamadan aan joogno hooyooyin badan ayaa ku rafaasan ma dhihi kara aabba ayaa ku rafaasan laakiin realitigii oo hooyooyin badan oo rafaasan ayaan arkaa sida gabadha maanta ooynaysay ee aan ku tusaayay markii aan muxuu ahayto aan waxa raasanaynay oo kale gabar aan ku tusaayay oo cunug yar oo ay dhashay 3 bilood laga maroojinayay oo muxuu ahayto uu soo gelinayay dab casar uu soo gelinayo kale oo ahaayo Columbus ka dhacday maantadan oo ay tahay bisha meeqa maanta March 11 oo high Columbus cunug tireedo laga qaatay wallahi run ahaanta aad baan uga naxay ilmo yar oo horta toos loola wareegay maanta ka hor ma arkin adiga ka hor ma aragtay was the first day aan arkaniga waa aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaa marka koowaad sheekh dabcasar shaqaadaga ayuu qabtay ugu yaraan wuxuu Soomaalida kale oo dhan ayuu tusay adduunka hadda meel kastoo Soomaali joogto sheekada gabadhaas yarta iyo familkaas waa laga war helay asaga dadkiis ayaana codkiis arinta loogu maqlay marka waxaan leeyahay horta shaqo wanaagsan aad qabatay sheekh dabcasar ajir iyo xasan Allah ka siiyo inta kale ee Soomaaliyada ee meelaha joogana u gargaar kartana bal inay wax ka qabtaan ay u howlgalaan waa arin laga naxo ma ilmo yar oo intaas oo bilood jira oo haddana leeyahay hooyadiis waa laga qaatay dad baa la tegaya wax laga naxo waaye ilaahay ha naga qabtaan dhigi karaa cadowga meelahan waxyaabo badan ayaa jira oo riski badan ayaa jirta sida dhulkeena oo kale maahan marka arrimo way iska adagyihiin sida uma fududa wallahi ana horta saameyn weyn ay ugu yeelatay maanta cunugtaas yartoo 3 bilood jirta aad baan muxuu ahayto ugu moraal dilaacay anigoo xaliba la moraal dilaacay Faadimo Brambur gabar walaasheen aan ugu qaali ah YouTuber ah oo muxuu ahayto laga qaatay 7 ciyaal ah laga qaatay oo kii u dambeeyay isbitaalka markaysan ugu dhashay laga qaatay oo ilmaheedii ay YouTuberada ka soo ooynayaan oo ina follow gareysid hadaa damacadina aadan follow gareyn karin iska ka xiraayo run ahaanta aad baan uga qaracmay aad baan uga xumaaday kullay waxaan dareensanahay sida aniga ay ii saameysay arrintaas ee haddaba codkayga dhaqsi isku bedelay ilintina indhahayga ugu soo istaagaysa waxaan dareensanahay hooyo kastoo Soomaaliyeed inay dhibaatadaas maanta ee gabdhaha dareemayeen inay la dareemaysay baan dareensanahay sababtoo tahay awal bay waxa ku mahad Soomaali korbiliseeda kabiis ma dheera hooyo walba way dareemaysaa ubadkeeda dhashay u jeceshahay sababtoo tahay naftirkeega u wad baan dhalay ilaahay ii xifti ilaahay iiga qabto wax ay dhib ilaahay iiga haayo waxa gabdhaha walaalahay oo maanta dhibaatadaas ay saameysay iyo gabar kale oo kasii horeyso ilmo agooma haysato iyadana social media ku jirta aad baan gabdhaha uga naxay aad baan uga qaracmay waxaan leeyahay run ahaantii walaalkay maali su'aalihiisa u soo noqonaya gabdhahaas walaalahay ilaahay weyn subxaanahu wa ta'ala waxaan leeyahay ilaaha u fududeeyo ilaahay weyn subxaanahu wa ta'ala gacantooda Allah ku soo celiyo ubadkooda ilaahay idimkiis wax la baryo ilaahay baa ugu weyn wax la baryo ilaahay weyn subxaanahu wa ta'ala ugu weyn ilaahay magaciisa wax lagu waayeen lama helaayo qadartan waa qadarta rabbi waxaan leeyahay ilaahay idinkiis gabdhahaas ilaahay ilmahooda gacantooda Allah ugu soo celiyo si dhib la'aan ah 9 bilood bay caloosha ku wadeen ama 9 bilood isug bay caloosha ku wadeen way foosheen way dhaleen rafaaday la mareen habeenkii oo dhan bay u soo kacayeen waa waxay la silceen wax jirkooda laga soo gooyay
ilaahay wana subxaana watacaala waxaan uga baryeynaa inuu ilaahay ubadkooda gacantooda ugu soo celiyo aamiinta buu ugu dar ilaahay idinkiis inuu ilaahay ilmahooda u soo celiyo ilaahay inuu u soo celiyo laakiin ani ilmo la qaadanayo maana arkin cabdallow maanta gabadhii maxaad dareenta abuu nin ragaa tahay ani horta hooyaan ahay maanta waan ooy iminkana waa ooynaya waa dareemi karaa waa run ahaantii aad baan uga naxay aniga saas marar badan ma arkin barnaamijyadan oo kale ma arki jirin ama live barnaamij arrinkan oo kale u dhacaysa ma aan arag wax igu cusub ay noqotay waana wax laga calal xumada waayo qof walba Soomaaliya waa aad u dhibsanaya waa dad ka awood badan oo haddana aadan la dagaalami karin ilmihii baa la qaadanayaa waad u jeedaa laakiin haddaad joogto meesha hataa maxaad ka qaban kartaa waa lagu fiirinaya waxa loo leeyahay ka bax dabcan sirwan xasuustaa sidii ay ula doodayeen askarta u dhahayeen isaga carar meesha camal markuu dhahayay war halaga lexda dadkan anaga damaanad qaadayna ama aniga meel geenayo ma xasuustaa mid Soomaaliya wuxuu ku yiri mataqaana ma lacag baad haysaa aad ku qaadid ku dabaana qaadid mugti gaarigiisu dib ugu laabtay lacag buu soo bixiyay والله وأرين هذا قوي بيري سديت كن وايو يري أنا دجيناي سديت كن واي أنا ميل دجيناي نينكي أسكري أي وحو كويري كنا قماشة ككنتي معناها ولا واحد خبان كرتمر ولا جاوا الدنيا مركي انتي الصومالية بدن اسو إمادة وشوب اسكو سوترو مدحي اسقشتي يا سيدي لا بي لغا ورابينا نين إناق بمدحي سا اسو قشتين بامحو أهيتو لغا دحبيحي عنوكي oo la yiri 24 hours ka bacdi is wareysan karnaa meed erg waxay ku gabagabeeyeen maamada u dambeysay u soo noqoto yiri maxaa lagu dhameeyay dabcasan maxay tiri haddii xitaa qof lagu wareejinayo 24 hours ka bacdi baa la soo noqonayo oo cunugtaas lagu wareejinayo dadka 3 months bisayna dhalan tahay I feel sorry wallahi aad baan oga naxay waa hooyo Soomaaliyeed waa isdilaasuna isisiinayaa bay tiri ilaahay idinkiis gabadhaas kurbada haysata allaha ka siibo dad muslim baa wadanahay allaha ka siibo marka cabdullah maxaa dhihi lahayd walaal meesha ilmiya lagu dhalmaa dhihi lahayd lama dhihi karo oo ilaahay baa qadarta iskale sidoo kale dee qof kastoo binaadana maxaa dhihi lahayd yacni ilmaha yaana halkan lagu dhalin oor aabiyaasha iyo hooyadinka nimanka gabdhaha inta ilmo ka dhala ka tagaaye taas aad aadaan u dhaleeceynayna mas-uuliyiinta dadka aabayaalka Soomaalida kulli ma dhihi karo laakiin dad badan ayaa jira oo xun haddii waxaan qiyaasayaa marka ilmayaashaas oo kale aabayaashooda joogaan ama waalidkood ay wada dhan yihiin inay adkaan lahayd in si fudud la isaga qaato marka waxaan u malaynayaa marka booskii aabaha ayaa meesha ka maqan oo cidlaa laga helay oo maamadii kaliya la dhacdhacaysa ayaa la helay inta badanna familiyadaas waxaa meesha ka maqan ama aan ka muuqan waa aabihii waxaan dhahayaa marka aabayaasha Soomaalida meesha iska qaada mas-uuliyad weyn ayaa saaran ubad ayaa dhashay waxaa lagaa rabaa marka inaad xil badan iska saartid sidii xoolaha oo kale intaa iska dhashay iska dhaqaaqda lama rabo iska saar mas-uuliyad fara badan aakhire waa la weydiinayaa inaad intaad wax dhasho aad tiraahdo waa dhalay waa ka socday ma soconayso hataa haddii ninku uu xaaska kala tagaan oo kale inuu ilmihiisa ka warhayo oo marwalba la socdo uu soo wareyso soo booqdo waa arrin aad iyo aad isaga xoog khasabka waayo adaa dhalay ilmahan haddii ilmahan ay dhumaan haddii akhlaaqdooda xumaato haddii meel ka dhacaan haddii dhib gaaro kulligood adiga dembiga adaa iska lahaanaya waayo meeshii waad ka maqan tahay waxa ugu badan dadka hadda halaabo oo kale aan arkayo kale waa aabba la-aan baa keenaysa khaasatan dhalinyarada oo kale aan arko meelahan oo kale lagu dhahayo qofkaas noloshu ka dhacay waxaa keenaysa maamo ayaa keligeed la dalaadhacyeynaysa noloshii miyay ka fakartaa iyo biilkii mise ilmihii bay akhlaaqdiisii iyo idaabtiisii iyo ka fikirtaa ku mashquulsha muhiimaddu waxay tahay marka booska aabayaasha ayaa meesha ka maqan meesha la iska qaado nin kastoo wax dhalayna ha ogaado wuxuu dhalay iyo mas-uuliyadda ka saaran niyaysan noqonin sida xooluhuba way dhalaane aan dhal waa ka socdo ma soconayso hataa haddii ninku xaaska la guursado kuwan uu dhalay mas-uuliyad ayaa ka saaran meesha ma noqon saas looma baahna marka hana ceebeynina idinkana naftiina iyo aakhiradiina dhibaataa u keenina maanta aan kaa dhexgala adaa wadatida gabdhihii meesha joogay su-aaluhu dabcasar weydiinaya waxaa ka mid ahayd nin dambe oo Soomaali ah ma rabno waayo
ilmihii ay dhaleen baa saa loo qaadana maalin walba maadaama saa loo qaadana ama jamaicankaa rabtiin buu yiri aruna inaa maqleysi haa jamaicankaa dhaamo bay dheheen waayo jamaicanka ilmahooda kama tagaayaan wallahi ma garan karo anigu aaba ilmihii uu dhalay intuu dhalay iska tuuraya oo maamadii kaliya ku deynaya waa khayr mas-uulnimo asaga haysataan malaynayaa wax soomaali ama community lama dhihi karo waa shaksiyan daciifnimo markaa qofka haysata waay community ana ma dhihi karo ama soomaali ahaan aabayaal fara badan oo soomaali oo aad iyo aad u wanaagsan oo ilmahooda iyo faamilkooda ka horaya ayaa jira marka qofka wax asaga u gaara iyo dhib asaga u gaara iyo daciifnimo shaksiyan haysata ayaan dhihi karaa community uma saari kara taas asxaabay muxuu ahay to anigaa questionkaa qabana waxaa waaye ase aniga dumar ahaan hooye ahaan ayaan u hadlayaa waayo waxaan arkaa inta badan dayacaadda meeshay taalla waxaan arkaa dulduleelka meesha uu yaalla waxaan arkaa carruurta iyo hooyooyinka siday u jilicsan yihiin baan arkaa marka aniga run ahaantii mar walba waxaan eedeeyaa wiilasha nada soomaaliyeed sababtay tahay wax qaar baa wiilasha dhan aniga ma dhihi kara maasha allah wiilal waxaa ku jira toob ah oo aan ilmahooda diicin oo ilmahooda habeen iyo maalin u taagan balse waxaa jira rag oo ragga sarwaalkii iyo shaatigii la hugun balse ilma aana danaynin naagta intuu rabo ilmaha danaynaya hadday naagta meesha ka baxdana ilmaha aana danaynaynin asxaabay marka ragga soomaaliyada ee farinta tani quseysaa ee aad u quseysaa for example gabadha yaree maanta ilmaha laga jiitay dad bay dulsaar ku aheeday la nooleed gurigii baa laga soo ceyriyey bac madoobay alaab ku wadatay dharka cunugta ma fahmaysiin dhibaatada waxa keenaya haddii aabihii cunugaa dhalay gabadhaa guri uu u dejin lahaa hadduu afrika joogo afrika uu kasoo guursaday oo ayada ay meeshaas imaada meesha ku dhashay oo ay xamili weysay qaraabo u tagtay iyo haddii oo muxuu ahayto uu qurbaha intuu ku guursaday uu kaga tagay sida annagaba aniga in la hadlaayaba inta ilmo laygaga dhalay laygaga tagay laygaga dayacay ilaahay baa ila koriyay ilaahay baana iga qabta gaalada lagu dayacay qaladka waxa iskale aabaha sababtay tahay wuxuu xaq u leeyahay haddii uu qurbaha joogo inuu gabadha mas-uuliyadeeda qaadi kara intay cunugeeda uu oga karaa inuu guri u kareeyo guriga ay ku dhasho oo cunugeeda guriga ku haysato oo gaajadeeda iyo daboolnaanteeda iyo araajinimadeeda iyo muxuu ahayto dhibaatadeeda ee gurigeeda ku asturnaata ina qof bilo aadan aynan u mutaysanin waayo adaa caloosha u bixiyay gabadhan ayadoo kaliga socoto oo shaqaysanaysa oo faamiligeeda u shaqaynaysa ee kasoo dhooftay mas-uuliyaddii waad qaadi weysay adaa ku dayacday ilmaha yarna adaa meesha dhigtay haddii aadan ilmaha haysani karin oo gabadha haddaad uur u yeeshiin ilmihii aad ka dhasheen ragow aadan haysani karin oo aadan muxuu ahayto tarbiyadiisii iyo noloshiisii cunuga ay meeshuu saaxani lahay aadan ka warqabi karin biliis ilmaha dhalina naagna ha guursanina gabdhaha waa masaakiin gabdhahana been ha u sheegina gabdhaha been sida waxaa la yiri lo ay ninana ku soo fulin doonin yuna ku aroorinin intaa been u sheegtiin gabdhaha ha aroorinina haddaadan ilmahaas aad dhasheen aadan haysana doonin rag meel kasta uu joogaan la hadlaa war kan afrika jooga xitaa intay cunugtaa kasoo koraysa gabadha biilkeeda wixii uu ku kabi kara wuu ku kabi karaa sababto taa isagaba waa nool yahay noloshiisii buu haysa sax marka waxaan kula talinayaa ragga haddaysan ilmahooda daryeelaynin inaynan degdegana ilmo iska dhalin the second kale waxaa waaye waxaan ku waaninaya gabdhaha nin aadan sal iyo baar u barinin inuu ubadka jecel yahay inuu ubadkaaga jecel yahay inuu adigu ku jecel yahay aadan sal iyo baar aadan u barinin uur ha u noqonina wallaahi waa iga talo ilmaha u dhalina dhabarkaa inkugu jireena intaad maxay hada u dhal lahaydaan kaasoo kale wallaahi iska celi ilmo intaad iska celin kartiin oo ninka aad baranaysiin wallaahi maalin walba hooyaa ooynaysa wir arag nin inta facebooka soo fadhiisto oynaaya
indhahayga weli ma saarin faaduma bramber 24 hours ayada oo is ilaahay weyna subxaana watacaala ilmaheeda gacanta allaha ugu soo celiya gabadhaas mar walba ayada oynaysa gaariyu ama ku wadaa oo dhinaceedu fadhiya laakiin asagoo oynayo weli maana arkin laakiin ayada 24 hours oo hinteeda iyo murugteeda waana hor taaganta gabadhaas habeenkii annagoo ka walwalsan baa sariirta tagnaa markaan youtube-keeda arka subaxina waa kusoo kacaa anoo u duceynaa insha allah billahi kariim waa helaysaa ilmahaaga faaduma ilaahay idinkiis wax walba waa qadarta rabbi gabadha hadda maanta oynaysine kaligeedaa meesha fadhiday nina lama fadhinin waa kaligeed soomaali maxamed baa jug isku soo tiri ilmihiina ayagoo arkaa laga dhex bixiyey awood kuma lihin meeshaan awood aan ku leenahay ma lahan walaalayaal hadalka wallahi waan ku dheeraanay inaan intaa gaarsiiye ma rabin waxaan jecelahay aniga intaas ayaa idinkiiga baxay laakiin walaalkay ayaa soo xiray gabagabadii iyo gunaanadkii waa mahadsantahay udgoon wax badan ayaan hadalnay hadal badan hal ma buuxshaa la yidhi muhiimaddu waxay tahay qoys kastoo Soomaaliya inuu ubadkiisa iyo jiritaankiisa ilaashado in ilmaha aan la dayacin meel kastoo la joogo dal iyo dibadba in la ogaado ay dadku bartaan ama raggu ay bartaan qiimaha ay leeyihiin ilmuhu ama familku leeyahay muhiimaddu waxay tahay inaan qofku uusan wax isaga dhalin sidii xoolii oo kale uusan banaanka uga dhaqaaqin nin kastaba meel kasta ha jooga inuu ogyahay mas-uuliyadda ka saaran familkiisa iyo wixii dhalay iyo xaaskiisaba inuu ogyahay iskana xilqaama arrintaasna intaas ayaan ku dari lahaa waa mahadsantahay mar kale saa igu soo dhaweysay channelkan insha allah intaas ayaan kusoo gabagabinaya anigu waan kaga baxayaa mar kale ayaan rajeynaya aan kasoo muuqdo waad mahadsantihiin thank you